haddii nala weynaadaan guryaha iyo waxyaabaha yaryarka oo uusan nala weynaan dastuurka waa khasaaro intaas waxaa sii dheer oo aanan ka malaysanin runtii madaxweynaha inuu hantida qaranka ku tasarrufo sida foosha xun oo gacmihiisa ku qaado oo uusan soo marin hanaan dowladnimo hantida dowladda haddii la gadaa waxaa la mariyaa saa ogtihiin guddi iibka qaranaa jira qasnada dowladda ku dhacdaa naada qaranaa jirta cidda kharashka ugu badan bixinaysa ayaa laga iibiyaa dadka la barakiciyana ciwaday leeyihiin maxaa yeelay muwaadinku dowladda wuxuu ku leeyahay hooy u qalma wuxuu ku qorayaa dastuurka lacagtaas in haddana loo adeegsado waxaa nasiib darro ah doorasho been abuura magaalada muqdisho doorashooyinka ka dhacayo beenta ahay isqoristi waa la isqasbay doorashada waa la isqasbay natiijada waa laga been sheegay waxaa sidaasoo kale nasiib darro ah baydhaba wixii ka dhacay madaxweynaha inta aan u tegaynay oo aan la hadlaynay waxaan dhahaynay madaxweynuhu dalka sharciga ku hogaami raggaana maamul goboleedyada jooga waqtiga waa ka dhammaaday doorashaha galaan haddii mid adiga aad jecesha oo jiro inuu joogo taageer inuu soo noqdo mushkilo kuma qabno laakiin sharci darraysan ku joogin waxaad ogtihiin dadkii ugu waaweynaa deegaankaas الله ونحرسته بروفيسور جواري قدومي برلمان كهره شريف حسن قدومي مرسل يا وحلري البور كم له فكرتي يا علناي مدوان حسن كدبنا maxaa dhacay ninkii waxaas u sameeyay inay isku qabsaan doorashooyinka oo raaxabada laga bixiyo meesha waxaan nasiib daraa ciidamada qaranka oo loo tababaray inay shabaab la diriraan in la hoday oo la mariyay meel aan aamin ahayn aysan tabar u haynin xog haynin tii ilaahi iyo naxariista wiilashaas iyo gabdhahaas ku gudbeen khatar weyn ah dhacday xoogaalan dadaan nool lagu qabsaday gaadiida la qaatay gaadiida la gubay looma baahnay wax lagu xalli karo nabad iyo isfaham iyo doorasho la isla ogol yahay in dhiig lagu daadiyo nasiib darro waa reer baydhabo waa farxeen waxay israahdeen waa ladinka dulqaado wixii aad dhibsanayseen laakiin maanta meesha ma joogaan maanta waxay taagan yihiin ma la iska kacsanaayay mase waa la kala kicinayay ilaan dalkan nidaamka federaalka waxaa loogu talagalay qolo kastaba in intay fariisato nidaamkeeda soo dhisato is soo doorato federaalka adana la isku yimaada loogu talagalay si kalsoonida loo dhiso waxaan oo dhan waxay u dhacayaan si loo dhiso kalsoonida dadka Soomaaliyeed u dhaxaysa inay dawladnimada isku kalsoonaadaan kadibna ay noogu dhismaan hay'adihii dawladnimada oo noo adeegi lahayd garsoorkii golihii wasiirada hay'adihii kale hay'adihii amniga inay noo dhismaan oo ay noqdaan hay'ado aan wada leenahay oo qofna khiraad dareemaynin laakiin marka hay'aduhu noqdaan inay u shaqeeyaan madaxda kaliya sida ka dhacda gobolka Banaadir sida ka dhacaysa meelo kale ma dareemayno inay noo dhaxayaan qof kasta Soomaaliyana waa dareemi kara arrintaas annaga marka mas'uuliyadna saaran waxa waaye dad waaweyn oo dalka u soo shaqeeyay xil soo qabtaan ayadoo dhibaato jirto oo ra'yigaana loo baahan yahay oo codkeena loo baahan yahay oo dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ku dhacaysa codkeena ay u baahan yihiin inaan iska seexan suuragal ma waa inaan qaadanaa initiative waa inaan tilaabo qaadnaa waa inaan muujinaa dhibaatada dalka ka jirta taas waxay keentay inaan u yeerno dadkii aan idin sheegnay oo culimadu ka mid yihiin duubka dhaqanka ay ka mid yihiin haddana dadka noo balansan haweenku ay ka mid yihiin maanta inala joogan ururada bulshada rayidka ganacsatada iyo dhibanayaasha si aan u qaadano tala aan u midaysanno dawladnimada kuma dhisna xoog yani mesela marka qaar waxa laga yaabaa ciidan la dhisay diyaarada la keenay kana la keenay حتى هديتها واحد حوجن هرت شرعي جوا واحد حوجن عدالة جوا حوق قفلية حوق قفلة هاي معنا مسمين حوق الشباب سو حوق ما متاجرسنا حوق الشباب ما محاودي دناي عدالة در دولة هذا جد كاس مرتمرك محاد عاي اللي غفك Soomaaliga قال لدلو والله دعو والله بركعيو محا شابه قد وانت بالعكس واكحن وبضنت دولة هذا هذين كل شقيس oo soo halgantay oo soo dhibtootay oo xuquuqda u lahayd sharciga oo ku dhaartay madaxweynaha dadka inuu adeegayo dawladdu inay khadamaad bixinayso waa caafimaadkii waxbarashadii inay ka shaqeynayso intiina hadda meesha joogto qof intuu shaqo raadiyay helaa mid ku jira qof inuu gacanta ka qafma hina maya waxa loo socdo waxa waaye shahaadadaada inaad dirto khibradaada inaad dirto oo la fiiriyo lagu yaraawaha shaqada
waxaad buuxisay shuruudihii iyo ma helin maxaa yeelay shuruudiyaa buuxi weysa ma jirto hadda maanta qof shaqo soo heli kara xildhibaanadii sinnaay oo la soo wada doortay midna waxa waaye dhulaa la siiyey midna waxaa la yidhi waa la ganaaxay maba imaan karaba maxay ahaato shirarka xataa ma imaan karo laba xildhibaan oo la soo doortay oo laba deegaan maxaa loogu saleeyay waxaan rabo ogol yahay iyo ma ogola siyaasadda saas ma labada xildhibaan oo la soo doortay waa siman yihiin xuquuqda u simeeyay waajibaadka marka waxaas inaan anaga iska aamusno iska fariisano anaga waxaan u aragnay inay tahay yani runtii mas'uuliyad darro mas'uuliyadana gudanayna waajibkeena gudanayna shalay anagoo intaan ka dhalin yar aan dadkan iyo dalkan banaanka u istaagnay ilaahayna waa nagu guuleeyay haddana waa u taagannahay runay naga tahay maalinna kama harayna inta aan noolnahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.